caruusadatan waxay dhigeen oo ay geliyeen qabriga saacada kadibna waxaa la arkay arrin dadkii fajicisa ku noqotay. soo dhowaada dhammaantiin. qisadani dhinaca haddii laga fiiriyo laga yaaba inay tahay mid murugo, hase ahaatee gadaasheeda dhammaadkeeda wixii dhacay wuxuu noqday mid qofna uusan rumaysan oo ruuxna uusan filayn. farxadda arooska bilowgeeda qofna ma firayo wax musiibo ah, waa la faraxsan yahay oo waa la qoslaya. dadku maysan malaysan mana filayn arooska kan in masiibo ay ku dhici doonto. qisadani waxay dhacday 2012 gabadhii caruusadda ahayd oo ahayd dhowr iyo 10 sana jir, noloshuna markaasi u bilaabatay iyo farxaddu ayaa gaarigii siday cagaha kor u taagay. gaarigay saarnayd aroosadan ayaa gadoomay ama rogmaday, taasoo keentay islamarkiiba inay geeriyooto caruusaddii, caruuskiina uu dhaawac soo gaaro gaar ahaan jirka qaybta hoose. dhacdada noocaana waa naadir ama waa yar tahay inay dhacdo. meeshay u sogootinayeen markii hore ay u wadeen oo ah gurigeeda cusub iyo farxaddeeda nolosheeda mustaqbaleed ayay markii dambe waxay noqotay arrinka inay u sogootiyeen qabrigeedii iyo inay aakhira u hayaanto. gabadhii si degdega ayaa meydkeedii loo diyaariyoo loo dhaqay, kadibna waa lagu tukaday si ay u fududaato in la aaso. in badanoo dadkii ka mid ah ama dhammaantoodba waa xaadireen oo goobjoog bay ka ahaayeen janaasadda caruusaddan geerida degdega ay ku timid, sababtoo ah deegaanka gabar laga yaqaana ayay ahayd. dhowr sanaan iyo akhlaaq iyo qurux ayaa caan ku ahayd. qof walboo arrintaasi maqlay oo yaqaanay waa ka naxay. shaqo kastou hayeen oo gacmaha kula jirayna wuu joojiyey si uu uga qayb galo janaasadeeda. gabadhaani marka hore waxay ahayd mid salaadeeda ku gudata masaajidka oo caan bay ka ahayd xaafadda iyo deegaankaba, taasoo lagu darayo inay taqaanay qur-aanka ay aad u xafidsanayd, ayadoo qur-aanka ku xafiday 10 jir. laakiin qadarka ilaahay baa dhacay iyo doonitaankii rabbigeen, kaasoo uusan garanayn allaha macbuudka mooyaane. ilaahay wuxuu ku qoray geeri iyo inay dhimato adduunkan dhaafto maalintay aroosayso, mana jiro xukunka ilaahay iyo qadarkiisa qof bedeli kara. siday doontaba ha noqotee aasitaankeeda saacada kadib dad ka mida qoyskeedii waxay maqleen cod aad moodeen inuu ooyayo, kaasoo laga maqlay masaajidkii xaafadda ku yaalay ay ku tukan jirtay, meeshay ku tukan jirtay iyo masaajidkii ay caanka ka ahayd. waayo gabadhan waxay ka mid ahayd gabdhaha farakutiriska ee masaajidkaasi caanka ka ahay qacanta ku hayay nadaafadiisa iyo howlihiisa kaleba. codkan ayaa halkaa laga maqlaa. codka moodid qof ooyaya, waxa qof oo meesha ka muuqdana ma jiro. dadkii maqlaya waa la fajaceen. codkan si xadidan aan loo garanayn meeshuu ka soo baxayo. warkiibaa xaafadda ku faafay, dadkii waa soo xaadireen meeshii. qof walba codkaasi ooyaya waa maqlayaa, laakiin ma xadidi karo ruuxa uu yahay. waxaa loo yeeray sheikhii masaajidka imaamka ka ahaa oo aad gabadha u yaqaanay ilaa laga soo bilaabo yaraanteedii. sheikhii markii loo yeeray oo meeshii tegey oo uu dhegaystay oo asaguna sidoo kale codkii maqlay, markuu galay masaajidkii ay ku tukanaysay gabadhu ayuu soo baxay sheikhii oo ooyaya oo ilmaynaya. dadkiibaa u soo dhowaaday oo ay ka mid tahay hooyadii gabadhan. waxay dhaheen maxaad aragtay? ma masiibaad la soo kulantay? maxaad dareentay? wuxuu yidhi waxa ooyaya waxaa weeye qur-aankii gabadha halkaa dadka ku bari jirtay ee ku akhrin jirtay, malaa'igtii dhegaysan jirtay ee soo xaadiiri jirtay oo maanta weyday oo hintoodii wey. waa qiso cajiiba. waxaaba laga yaabaa la dhihi karaa waxay ka caruusnayd oo ka marti qaadnay jannada rabbigeen tabaaraka wa tacaala. ilaahay dhammaanteen iyo ideelkeen khaatumadaha noo wanaajiyo. maxaad ka fahanteen qisadan? mase maqasheen qisadan laftirkeeda ama mid u dhigan oo la mid ah? hadday jirto qaybta hoose nagula wadaaga ra'yigiinna. baaraka allaahu fiikum.